Hamjamboni. Hamjamboni. I think Amina has fed us all, so we really should speak like people who have had some warm, hot food in our bellies. Hamjambo. Thank you so much for hosting me here in this wonderful place where we've eaten some of the best food I've eaten since I left home. And fantastic cooking. I also made a joke earlier today as we were coming here, and I said, "Ninaenda kukula kwa Somali. There will be food and a banana." So thank you for being consistent. As you know, my name is Roseline Njogu. I am the PS for Diaspora Affairs within the Ministry of Foreign and Diaspora Affairs. It's really my honor and pleasure to be your PS and to be your connection within government. As an administration, a big part of what we have done has been to do this, to bring the diaspora in conversation with us at home, to ensure that when we travel, on even from Nairobi, we are constantly engaging those who are our people and live far from us and live abroad, and we are having these kinds of conversations. So thank you for... Late brother, Samatar, later I was his uncle. And we're coming towards the end of our dinner. Before I call on the next speaker to invite the Madam PS, I would like to recognize my two people who have actually done extremely very well preparing and setting up this particular beautiful place. My young sisters Sumaya and Sufyan. When I and Dr. Siad and Amina spoke last night, and Dris is here, this gentleman here. Dris from Garissa County is a businessman. We had to come here this morning. Within short time, they organized this place and they deserve recognition. Just to go through the memory lane, I know we have made some significant progress, but that's not the whole story. In this state, there's almost about 150 or so Somalis who live in Minnesota, who call Minnesota home. In fact, we live in greater Minnesota in areas you will not see anyone else. Bismillahir Rahmanir Rahim. Magacayga waa Umar Aadan, waxaan ka mid ahay Somali Kenyanka ee ku nool gobolka Minnesota ee Qurbe-joogta ah. Siyaasina ah, maanta halkan waxaan ku soo dhaweynay Xoghaya joogtada ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Qurbe-joogta. Wali Xoghaya Qurbe-joogtada PS loo yaqaan afka qalaad Madam Roseline Njogu oo halkan u timid booqasho rasmi ah oo la socotay wafdigii madaxweyne William Ruto, wafdigii taariikhda gale oo taariikhiga ahaa madaxweynaheena dalka Kenya oo ku yimid dalka Mareykanka soo caazimaad rasmi ka helay madaxweynaha Mareykanka. Madam Njogu waxay u timid inay halkan kula kulanto Qurbe-joogtada aan ka mid ahay. Oy dhageysatay programyadeennii iyo waxa aan halkan ka hayno dhan annagana fariinteennii wadankeena aan u fariinay iyo sida aan doonayn in maamulka loogu sameeyo Qurbe-joogtada aan ka hadalnay. Runtii wuxuu ahaa kulan miro dhalay. Qurbe-joogtada Kenyaanka Soomaalida kala timay maalin waxa imaadeen Afrikaanka kale waxa imaadeen Soomaaliya ee halkan joogtay oo ganacsatada caan ka lahaa sida Durdur oo kale uu matalay Sheekh Nuur Hadi imaamyada oo sida ay maqsalayeen Sheekh Yusuf waa la isdhaafsaday eraya muhiim ah ay hadalla wax galba xagga oo la isweedarsaday shir wuxuu ahaa muhiim ah runtii oo kooban oo miro dhalay ani aragtidayda kulli waad taqaanaan baan u maleynayaa jaaliyada Soomaaliyeed badi ee Siyaad Cabdullaahi oo gobolka Minnesota ka soo jeedo marna Kenya marna kulli jaaliyada Soomaaliyeed meel ay joogtaba maanta shir muhiim ah ayaan ku qabanay oo gadaalkan dambana kulli Kenya u badnaa oo u tartamay kursi baarsama doorashada soo dhaafay Kenya oo haddana madaxweynaha u magacaabay hay'adaha caafimaadka mid kamid ah
inuu trustee iyo advisor uu ka ahaado marka haddana Minnesota waan ahaa waqti aad u badan marka maanta waxaan halka ku soo dhaweynay on shir weyn ooga qabanay ganacsatada iyo waxgaradka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed inay la kulmaan principal secretary-ga Mrs. Njogu oo dawladda Kenya ka soxota xafiiska wasiirka arrimaha dibadda iyo Qurbe-joogta marka waxaanu ka dhaadhicinay oo rabnay inay halka u timaado meeshan African Development Center oo ilaahu naxariistay ninkii saaxiibkii Xuseen Samatar Garabay uu bilaabay oo haddana uu nasiib uu executive director-ka ka yahay oo xundurta magaalada Minneapolis ku taala inaan kala shirno sidii dadka Kenya ka yimid kalimaahine maadaama ay la kulantay dadka Kenya shalay maantana waxaan u keenay inay la kulanto Qurbe-joogta Soomaaliyeed maadaama Kenya iyo Soomaali de ay mataana aan la kala goyn karin ay yihiin jaaliyad Soomaaliyeedna labada dalba ay ku nool yihiin gadaalkan dambana Kenya ay noqotay de saldhigi Soomaali dhan meesha joogtaba meesha ilmaha iskuulka u dirsadaan oo dhaqan celis loo geeyo dugsi laga soo barto familiyada la wada geeysta ay noqotay waxaan ugu yeernay principal secretary inay la kulanto dadkan wayna u sheegeen dibka qaar ay Kenya kala kulmaan mesela waxaan kala hadlay khaasatan aniga aan kala hadlay oo u sheegay in markay dadka Kenya tagaan ay ganacsi intay u tagaan investor ay hanti gashadaan dalka Kenya ay ku rafaadaan xagga sharciga deganaashada si lagu heli lahaa marka waxaan ka codsanay inay liaison xafiiskeeda ay u sameeyso qolada immigration-ka siday dadka uga caawin lahayd arinta lagu heli lahaa deganaasho magacayga waxa la yiraahdaa Aamin Jaacadeble waxaan ahay mulkiilaha maqaayadaha la yiraahdo Oasis Deli Market waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta xogeyaha joogtada ah ee arrimaha dibadda Qurbe-joogta oo Kenya halka inay noogu imaato aanu soo dhaweyno sida aanu mar walba saad ogsoontihiin annaga waxaynu nahay ganacsatada Soomaaliyeed hadaynu nahay reer Minnesota waxaan nahay dad isku duuban soo dhaweeya qof kasta oo marti ah sida ogsoontihiin martida waxay leedahay karaamo marka karaamadaas ayaan maartay annagoo diinta islaamka raacayna ayaynu maartay aynu soo dhaweynta u sameeynaa waxaan u soo bandhignay maartay caqabadaha ka jira Kenya dadka ganacsatada Soomaaliyeed haday ka imaadaan Soomaaliya iyo haday Kenyaan ka Soomaalida ay yihiin intaba sharciyada iyo maartay dibka ka jira maalin walba oo aynu maqlayno in maartay maadaama iyada ay tahay wakiilka Qurbe-joogta inay maartay arintaas hoos u fiiriso hadii annaga Soomaalida aynu nahay hadaan maalgashi sameynayno inaan maartay aan la xiriirno in xiriir ummadda guud ahaan Afrikaanka gaar ahaan dawladda dariska nala ah oo Kenya qof kasta oo Soomaali ah Kenya somehow dhinac buu ka soo gala marka waxaan kala hadalnay arrimaha sayto waxaan kala hadalnay in maaragtay dadka halka joogan markay baxayaan visooyinka iyo wax walba in loo fududeeyo waxaan kale oo inta ku darsan lahaa fariin kale oo ah in aan wax ka barano dawladaha horumaray sida Kenya oo kaleeto dawladda Soomaaliya waxaan jeclaan lahaa inay sidaas oo kaleeto ay maaragtay noo soo magacaawdo wasiir Qurbe-joogeed oo maaragtay adduunka meel kasta intuu tago ummadda Soomaaliyeed isku aruurin karay sababta ummadda Soomaaliyeed waxay wali ka maqan oo ay u baahan tahay wax wali sukeena oo maaragtay ka dhaxeeya inkastoo waddankanaga uu naga wada dhaxeeyo misna waxaan rabnaa waxna hogaamiyo oo waxa naga dhaxeeya garanayo marka fariintayda waxay ku socotaa madaxweyne Xasan Sheekh waxaan leeyahay waa baahi jirto oo dadka u baahan yihiin marka waxaan jeclaan lahaa in naloo magacaabo wasiir sidaas oo kale waxaan rabaa inaan ku darsado oo kaleeto maaragtay bishan gudaheeda waxaa noogu yimid Minnesota ilaa 4 wasiir noogu yimid safiiraan noogu yimid kulligoodna markay halka yimaadaan waxay raadinayaan waxa weeyaan inay outreach ku sameeyaan dadka Soomaaliyeed ee Qurbe-joogta ah oo ay u arkeen meel kasta ay degaan inay ka dhigaan gurigii labaad oo ay deganaayeen oo kaleeto ay ka sameystaan marka annagoo fiirinayna fursadahaas dadka Soomaaliyeed loogu soo gabado oo loogu yimaado oo maaragtay meel kasta Soomaali baa la raadinaya dawladda Soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay noo soo magacaawdo Qurbe-joog hadaynu nahay asadkii waddanka
daymankii waddanka dhaqaalihii waddanka annaga ah marka waxaan jeclaan lahayn in dawladdu ay schedule-ka ay samaynayso oo wasiiradaha ay samaynayaan inay ku daraan wasiir qurba joogeed. Hi, my name is Assalamualaikum. I'm a candidate running for State House 62B. Currently State House Representative Hadan Hassan holds that seat. Inshallah, we are DFL endorsed, so that's exciting news. Today we're here at the African Development Center welcoming the PS diaspora from Kenya to work with the Somali and Kenyan diaspora here to talk about exciting initiatives to come in the future and being able to bridge the gap so that we can work together.